waa hard conversation wada sheekaysi kulul yaa ku sheekaysan doona wiil iyo gabadha baalaha iska rifi doona ku dheh baarka iska garaaci doona gabadhaas u bad waxay leedahay I'm very happy aad baan ugu faraxsanahay to relate with you inaan kula soo xiriiro adigu and be ana noqdo my fiancé aad noqotid my fiancé gacaliyahaygana aad noqoto so sidaa darteed what do you mind maxaad ka qabtaa arrinka marka maxaad ka qabtaa baaliye wiilkaas wuxuu leeyahay I admire aniga horta waan la dhacay at your speech hadalkan waan la dhacay anigu but like you are a slut adigu waxaa tahay areebo and I need anna waxaan u baahanahay isent girl gabar caraf badan u baahanahay carfaysa so sidaa darteed tell me ii sheeg something logical wax macquul gal ah aqliga galay ii sheeg baaliye gabadhaas waxay tahay actually xaqiiqdii you are an idiot waxaa tahay adigu maangab baa tahay and it is an idiotic opinion waana fikrad maangabnimo to tell in la sheega the defects ciladaha of the person ee qofka ciladiis in la sheegana waa fikrad maangabnimo you know waadna og tahay that I love you inaan kugu jeclahay with your body bidaar adoo leh bali bidaartaada kugu tal inaan kugu jeclahay I'm being lame jeez inaad tahay inaan kugu jeclahay bali but like I can rely on you iskuma ka halayn kara adigu can rely on you iskuma ka halayn karayo since maadaama you became a fool to me adaqan igu naqatay maadaama adaqan igu naqatay ma isku ka halayn kara liiraadi qofka inaa ka raadsado yuga sabir xuleeya why are you lamenting maxaad uga calaacalaysaa adigu why are you lamenting maxaad uga calaacalaysaa as a woman sida naag whose husband had died naag ninkeeda ka geeriyoodo kale maxaad uga calaacalaysaa madax dhulka ugu garaacanaysaa and I told you waana kuu sheegay that you don't deserve to me inaadan ii qalmin adigu so sidaa darteed fetch your level fa'agarat salir fa'agarat sufku fa'mani ani adigu an cheerio and nabadi cidi u salaam baa liiri fadlan hadii aad ka hesho muuqaalka like